Soomaalna aga shaqay Kenya markaan joogno ugu shaqaysan jiray meesha gaaran laga soo kaxay bareeg ma soo qaban meel waa badan laga soo aadaday oo xeebna aano magaalana aan ahayn yaa badan loo keenay doon afkana nolo geliyo macnada magacii waa daruur Bashiir Macu waa leedahay anigu magaca caadiga oo caamkan ku ah qabiilkiina waa makane meeshan ku dhashan waa Jubbada Dhexe waxbarasho meel tuulaan wax ku bartay oo Jubbada Dhexe kameel ah dugsi Quraan aan dhigtay meel dheer kuma gaaran laakiin inta yaroon bartay waa qaarna waa iga baxsan qaarna waa haystaa nimankan waxaan ka raacay gobolka Iida oon joogay Jubbada Dhexe meeshan ka raacay bugal Allah macnaha hadii ay hoos tagtaa laakiin meesha aan degno oon joogo waa meel tuulo cilmi ay dhahan hadii wacdi gelintooda iyo markay tuulada ay soo booqdaan wacdi gelin oo macnaha rag waa ku iimaanayo hadii ku wacdi gelinayo maartay maxaadar ku dhigay mugta maxaadarada ay ku dhigaan hadii cid kale meesha ka maxaadareysa malahan hadii gobolka asaga waa cid haysto kulay waa ogtiin anigu marka hore waxaan ka shaqeyn jiray mar hadii aan Kenya degnaayo Kenya aan joogo waa jirtay Kenya waxaan joogay dhagaxley sidii waxaan ka shaqeysan jiray mooto mooto feeko macaadi dhax gud yaan ka shaqeyn jiray Soomaalna aga shaqay Kenya markaan joogno ugu shaqeysan jiray Kenya markaas waa xaafadaha dad oo mootooyin oo xaafada ka shaqeeyo macnaha dad qaada oo magaalada gudaheeda macnaha sida ifo kale yaa dad la geeyni safaro ama baadiyaha dad geynaysa ay waa shaqo mooto iska shaqo mooto Soomaali hooyadii yaa xanuunsatay ayadoo Soomaali joogtay xanuunsatay asan qaaday waxaan geeyay meel ay dhahan dhagaxley labadaas indhood aleel ka kortay labadii indhood marka hal ilwaan fiiqa oo lagu fiiqa meesha maskaxda marka waxa jaam noqotay si walba saan ula tacaalay marka waan jaam maskaxda macnaha jiirotay oo waa maskaxda raacay isha marka la fiiq macnaha maskaxdeeda waxa jiirotay macnaha marka waxay noqotay marka danta ay u qalaftay inaan Soomaali aan ku soo celiyo Soomaali ku celiyo dhahan dadkii qaraabada ahaa Soomaali aan ku soo celiyay abaar baan hadana sidoo kale aan quraamiyay oo aan wax say ku caafimaad leed aan bal aan faraha la galay way caafimaad markay caafimaad kadib yaan ku dhahay hooyada ani cayalkii waxay iga jiraan Kenya aan u laabanay cayalkii baan hadii aan si aan ku soo wada lahaa yaan falkeeda galay ama xagaas aan u laabanay oo hooyaday baa iga diiday marka waxay u tiri Kenya iga ma tagaysaa wiilna adaan ka haystaa anna Kenya maro hadii cayalka hadaa rabto waa dalban kartaa way ku iimaan karaan waad joogaysaa Soomaali kama tagaysid oo kale ani shaqadii moota ay adeeysay أنا شغلي موتيات وأنا أنا اللي أنا تا تبروح أقصى قات ميل جلب يبوال ولا حس مجال ما أهمش وميل دورة هذه ما هبل ما ليه لكن وميل إسك دورة أو ما مجال له ما تبرع قات سندري ما يقولي أيضا كده لو بقولي أفرتنا وحرت مركور هذه قار إسك تجينا أي جرام هاني الأذي أنت عن أحيانا مركور لو بقولي أفرتنا الجانب رجع يربع كجريو طبعا قفضنا أنجارين والضمادة إيو قبيل أهان توضم هاي والله حلين ودن كيس ما أقان قبيل كيس ما أقان لو قدي سديرك أو معناها أجانب رجعنا للسعودي رجعوا هاي هن ورما إني هاين إني توبيان هاين ما قان لكن ترجمانها أنا أساكها مركان الله تو بري أنا هذا حاجة كم شقينا قبل كذا أن كسورة كم شقينا من راحن وحنا كشقينا أما مجال أنك تقني أما أنك جب هذينها تمامين توبرك مركان كصوب عن حلقة أنا لسوقات تياتر نين كانوا هذا نن أو حاجة أنا قصوا هربا هاين لكن رجع دونت مركان سوكرني غيري من سوراني هذه يدي وضدان أنا وضدان كم كلا كانوا حاجة شبه لا كان مسوي هذا نرتو قول كان أنتم مسوي هذا لكن غيري وينه يودي يا سوران ميل ده هو طول دبر ودقينه أو ميلها أربو إن الله دريمه سوني هذا مرة إيمانه عبارة ما مش جونا مدة الله بلاد يو دور ما مش جونا كدي بدني جاري كلام صوران سان أسوس أنا إيماني ميل أيدهان إن شبه لنا هو سيكون تعالى أو ميل قل أهم تقنيه هذانا سونا هاوي يعني إيمانه عبارة مش سان وجونيو بال يا الله بلاد يكال قصة مش جونا مش جارن لا يسوق حي بريق مسوق بين ميل وبدن لا يسوق أدي أون حب أنا مجالنا أنا هن يا بدن الله كان يدون أفكنا نلقي اليوم أنا دون على دونه حصرنا صدام دون دورت خيب يدو سوق هذا يصير دون لسوات راعي مهن دون مركان صراعي
tira ahaan inta doonta aan ku saarnayna anagu doonta aan saarnaa 30 qofood horta kama yaran macnaha doon walba ma qaybta saarnayd macnaha laba doon ay wax ها إلا 60 qof aday marka doonta wax inta saaran inta inta saaran macnaha leer meel ayna xeeb qumana ma ahna meel magaalo ma aha laakiin meeshan loogu deji laakiin meel leer ku eedanaya leer aan soo dhaxmarna markii dambe oo anigu gaari saaran leer aan soo maray leer Allah oo kala macnaha meeshan ka haystaa macnaha cabir ahaan leer aan soo marnay meel hadii aan galhariyadan kamid ah oo duuraha aan garanayno hadii magaalo hebel aan dhahay u dhowna aan lahayn yaa nala keenay meeshii baan cabaar joognay muddo adii 2 bilood oo kala ah haddana meeshii sii joognay kadib yaa marka meel loo kala qaaday ma aqaan ciidanka marka la kala jaray qayb waxa loo gudbiyay xagga mudug oo labada gobol hadii galhariya iyo mudug way kala yihiin soo mudug waa loo gudbiyay qaybta mudug baan ku darsamay oo ku jiray meel waxaan la geeyay jawlo horteeda oo meelaha xagga hore oo afka hore xardheer baadka aadan farax meel ay dhaan yana la geeyay meesha waxaan joogay muddo 4 bilood wax yar dhiman aaday yaan joogay kadib amar la'aan ka soo tagay meesha waxa soo aaday jawlo 8 saac ama 9 saac wax noocaas loo soconay meesha subaxii saan soo baxay baan imaaday casirkii magaalada intaan soo gaaran ali qabtay oo ayaga qabtay macnaha hadalay qabtay waxa ku soo waday hadee waa soo baxay oo ogow niman kale ay qabtay xabsiga la dhigay qab badan galnay wuxuu ahaay anagoo 20 qofood ayaan la qaaday dagaalka caaduna ah taariikhda ma xasuusto laakiin soonka hadda aan soo dhaafnay soonkiisii kale 2 bilood oo ka horeysay macnaha bisha labaad oo ka horeysay iyo aha taariikh ahaan macnaha waqti ahaan markaan qiyaas aan ka soo qaatay magacii waa daruur bashiir muxuu waa leedahay anigu magaca caadiga oo caamkan ku ah qabiilkiina waa makane meeshan ku dhashan waa jubada dhax waxbarasho meel tuulo aan wax ku bartay oo jubada dhax kameel ah dugsi quraan aan dhigtay meelo dheer kuma gaaran laakiin intii yaroon bartay waa qaarna waa iga baxsan qaarna waa haystaa nimankan waxaan ka raacay gobolka Iida oo joogay jubada dhax meeshan ka raacay bugaal la macnaha hadii ay hoos tagtaa laakiin meesha aan degno joogo waa meel tuulo oo cilmi ay dhahan hadii wacdi gelintooda iyo markay tuulada ay soo booqdaan wacdi gelin oo macnaha rag waa ku iimaanayo hadii ku wacdi gelinayo maartay maxaadar ku dhigay mugti maxaadarada ay ku dhigaan hadii cid kale meesha ka maxaadareysa malahan hadii gobolka asaga waa cid haysto kulay waa ogtiin anigu marka hore waxaan ka shaqeyn jiray mar hadii aan Kenya degnaayo Kenya aan joogo waa jirtay Kenya waxaan joogay dhagaxley sideedana waxaan ka shaqeysan jiray mooto mooto feeko macaadi dhax gud yaan ka shaqeyn jiray Soomaaliya aan ka shaqeey Kenya markaan joogno ka shaqeysan jiray Kenya markaas waa xaafadaha dad oo mootooyin oo xaafada ka shaqeeyo macnaha dad qaada oo seen magaalada gudaheeda macnaha sida ifo kale yaa dad la geeyay safaro ama baadiyaha sadad geynaysa adiga waa shaqo mooto iska shaqo mooto Soomaaliya hooyadii yaa xanuunsatay ayadoo Soomaaliya joogtay xanuunsatay asaan qaaday waxaan geeyay meel ay dhahan dhagaxley labadaas indhood aleel ka kortay labadii indhood marka hal ilwaan fiiqa oo lagu fiiqa meesha maskaxda marka waxa jaam noqotay si walba saan ula tacaalay marka waan jaam maskaxda macnaha jiirotay oo waa maskaxda raacay isha marka la fiiq macnaha maskaxdeeda waxa jiirotay macnaha marka waxay noqotay marka danta ay u qalftay inaan Soomaali aan ku soo celiyo Soomaali ku celiyo unahan dadkii qaraabada ahaa Soomaali aan ku soo celiyay abaar baan hadana sidoo kale aan quraamiyay oo aan adii wax say ku caafimaad lahayd aan faraha la galay way caafimaad markay caafimaad kadib yaan ku dhahay hooyo hadii aan cayaalkii waxa iga jiraan Kenya waan u laabanay cayaalkii baan hadii aan si aan ku soo wada lahaa yaan falkeeda galay ama xagaas aan u laabanay oo hooyaday ba iga diiday marka waxay u tiri Kenya iga ma tagaysaa wiilna adaan ka haystaa anna Kenya maro hadii cayaalka hadaa rabto waa dalban kartaa way ku iimaan karaan waad joogaysaa Soomaaliya kama tagaysid oo kale ani shaqadii mootay hadii أنا مش خذي موتيات وأنا أنا ليناتا طبعا حكوا سوق مال جلب يبغى له نحس
magaalo ma aha meesha waa meel duur ah hadee hebel ma dhihi kara laakiin waa meel iska duur ah oo magaalo laguma tababar qaatay saan dareemay kuley ciidanka hadee 240 waa horta marka hore hadii qaar iska tegay inay ay jiraan maahan adii intaan ahayn marka hore 240 ahayd ajaanib rag yar baa ku jiray oo 10 qofoodna aan gaarin wadamadooda iyo qabiil ahaantooda ma hayo la hal nin wadankiisa ma aqaan qabiilkiisana ma aqaan luuqadiisa dirag oo macnaha ajaanibta ragga nala socday rag waxay ahayn orama inay ahayn iyo inay Ethiopia ay ahayn ma aqaan laakiin turjubaan ahaan asaaka ahaa markaan la tababaray anaga de xagaas kama shaqeynaa gobolka hadda aan ka soo raacay kama shaqeynaa mar raaxan oo waxaan ka shaqeynaa ama magaalo aan ka tagnay ama aan ka jabhadayna hataa ma ahayn tababarka markaan ka soo baxnay halkaan la soo qaaday tiyaatar ninka noo ahaa hadee nin oo xagga naaga soo haray bay ahayn laakiin ragga doonta markaan soo kornay gaari waan soo raacnay caadi hadii wadadan oo anay wadanka ma kala aqaan xaggan Shabeelle dhanka ma soo aadan horta gobolkan inta uma soo aadan laakiin gaari weyn oo UD ah yaa soo raacnay meel dhaxo tuulo dabar uu degan yahay oo meelahan arabow inaan lahaan dareemay Sooneeda mar iimaan abaar ma meesha joogna muddo 2 bilood iyo dhowr baan meesha joogna kadib haddana gaari kale aan soo raacnay saan u soo soconaan imaanay meel ay dhahan Shabeelladan hoose ay ku taalo oo meel gol ahaan tagnay haddana soona haaway yaan imaanay abaar meesha saan u joognay oo bil iyo 2 bilood iyo kalko sameeyay joognay meesha gaaran laga soo kaxay bareeg ma soo qabanin meel waa badan laga soo aadaday oo xeebna aano magaalana aan ahayn yaa badan loo keenay doon afkana loo geliyo macnada doonta ala doon waxa saarnay 30 qof doonta horta qayb ay dad u soo qaadaysay oo doon la soo wad raaci maahan doonta markaan soo raacay tira ahaan inta doonta aan ku saarnay anagu doonta aan saarnaa 30 qof horta kama yaran macnaa doon walba ma qaybta saarnay macnaa laba doon ay wax oo soo raacay ha ilaa 60 qof aday marka doonta wax inta saaran inta saaran macnaa leer meel ayna حب قوم ما هنا مال مجال ما هلا لكن ماشين لو دج لكن مال علير كو ادنيا علير انا سو دحمرنا markii dambe oo anagu gaari saaran علير soo maray علير Allah oo kala macna meeshan ka haystaa macna Cabdirahan علير soo marnay meel hadii in galhariyadan kamid ah oo duuraha aan garanayno hadii magaalo hebel aan dhahay u dhownaan lahayn yaana la keenay meeshii baan cabaar joognay muddo adii 2 bilood oo kala ah haddana meeshii sii joognay kadib yaa marka meel loo kala qaaday ma aqaan ciidanka marka la kala jaray qayb waxa loo gudbiyay xagga mudug oo labada gobol galhareey iyo mudug way kala yihiin soo mudug waa loo gudbiyay qaybta mudug baan ku darsamaan oo ku jiray meel waxaan la geeyay in jawlo horteeda oo meelaha xagga hore oo afka hore xardheer baadka aadan farax meel ay dhahan yaana la geeyay meesha waxaan joogay muddo 4 bilood wax yar dhimana adi yaan joogay kadib amar la'aan ka soo tagay meesha waxa soo aaday jawlo 8 saac ama 9 saac wax noocaas loo soconay meesha subaxii saan soo baxay baan imaaday casirkii magaalada intaan soo gaaran ali qabtay oo ayaga qabtay macna hadda ali qabtay waxa ku soo waday